xariir maxamed jaamac oo tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka waramay socdaal wacyigelin oo musharaxu ka sameeyay gobolka hawd iyo deegaanada ku teedsan waxaana musharaxu sheegay in dadka ay ku boorinayaan qaadashada kaarka diiwaangelinta waxaana kamid ah hadaladiisii ilaahay ma hadda marka hore marka xigeen waxaan doonayaa inaan halkan ka brief gareeyo oo warbixin yar oo kooban ka siiyo dadkii qurba joogta ah ee gobolkan ka soo jeeday iyo qolqol joog intaba aniga oo ah xariir maxamed jaamac xildhibaan u sharaxan golaha baarlamaanka ee Marwada Jeex iyo xildhibaano kale oo deegaanka ah baarlamaanka ah gudoomiye xisbiga Marwada Jeex Xamse Ciise iyo dad fara badan oo kale oo xubno kamid ah xisbiga wadani waxaan ka soo baxnay shalayto in Hargeysa waxaan soo maray magaalooyin fara badan oo ay kamid tahay Dirfacle Habaasuweyn Jawaaqe magaaladiish magaala xaali bilgubad gumbraha bilgubadle oo xalay u hoyanay saaka oo aan baxnay kaabada iyo gumar waxaanu socdaalkaygana waxa oo daarnaa diiwaangelinta maanta dadkeenu u baahan yahay iyo baahida uu qabo waa ogeedeen diiwaangelintii hore dhacday gobolka hawd waxa ka jiray in abaaro iyo dadka guuray sida darteed iyo dadka aan u bislayn inay isdiiwaangeliyaan kaarka qaataan waxaan u sheegnay dadka inay diiwaangelinta galaan kaarka qaataan gacantooda ay wax ku goostaan inaanay fartooda eersanay fartooda ay malab daraan waxaan leeyahay oo aan u sheegayaa oo iyagana halkan uga sheegayaa dadka aan u nimid wacyigelinayno inay arinta ku dadaalaan oo aanay ka seexan oo ay u soo toosaan waxa kale oo aanu qabanay waxaanu dirnay baabuur u baxday xaqii hawdka oo aanu qabanqaabinayno waxaanu diyaarinay meelihii dadku ay maganaysaa ku soo degi lahaayeen wixii maganaysaa baahidoodii oo dhan inaanu dabooleyntii joogaan ay diiwaangelinta gelayaan kadibna nin walba lagu celiyo deegaankiisii uu ka soo jeeday waayo waxaanu ka faa'iidaysanaynaa tii hore dhacday dadka waa la soo guray waxa lagu daadiyay meelo cidla ah dibna looma celin baahidii haysina lama daboolin nin waliba uu ka carooday waxaan ilaahay dib xitaa ugu soo noqonayno hase ahaatee imika waxay naga aqbaleen oo dhammaantood magarasa gacmo furan ugu soo dhaweeyeen wacyigelintaanu sameeynay oo aanu guri u galay example haddaan tusaaleed ku soo qaado bilgubadle saaka waanu ku wareegnay xaafad baan u tagnay afarta koono magaalada waanu uga baxnay beeraleydii baa noo timid waanu la shiray waanay nala qaateen maanta waxaan rajaynayaa in gobolka hawd ee caasimadda bilgubadle tahay in ay insha Allah biidmillaahi kariim sidaan rajaynayno oo rajo aad u qurux badan oo noo muuqata in ay dadku sidii loo baahnaa ay isu diiwaangelin doonaan waxa kale oo noo raaca oo ilaahay mahadiya raxmadii baa daaday oo xalay roob fara badan baa daay shalay roob badan baa daay dadku way barwaaqaysan yihiin habbi way wada yihiin qof waliba soo farxad ka muuqato ayuu wuxuu noo soo jeediyay in uu diyaar u yahay inuu diiwaangelinta ka qayb galo marka aan eegnay maartay aanu aad u kuurgalay dadka example haddaan ka soo qaado familiga 15 qof ah waxa iska diiwaangeliyay 4 qof tii hore hase ahaatee waxaan rajaynaynaa 4 qof mid kamid oo kaarka haysta in laga yimaado reerka iyo xoolaha inta kale ay yimaadaan oo isdiiwaangeliyaan waana nala qaateen wax walbana waa u diyaar annana waa wixii mas'uuliyadeeda magarasano insha Allah qaadi karo oo qaadaynaa ka xisbi ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba waxa kale oo aan doonayaa inaan gaarsiiyo dadkii qurba joogta ahaa ee arinta inta badan ka hadli jiray oo ugu bushaareynaya inay ku bushaareystaan in gobolka hawd dadkii u dhashay ay maanta u soo jeedaan inay isdiiwaan geliyaan oo ay la tartamaan qeyrkood iyo gobolada kale sidaan rajaynayna boqolkiiba boqol way isdiiwaan gelin doonaan dadkaasi saas ku bushaareysta dibad iyo gudaba arintaydu maanta aad bay qurux badan tahay waanu soo tafaxaydanay xisbi ahaan iyo xildhibaan ahaanba iyo dad aqoon-yahan ah dhalinyaro looma kala harin halkan waxa maanta noo raacdo kale xaflad aad u ballaaran oo lagu soo dhaweynayo magarasa loo sameeyay tiimkii gobolka hawd in footballshii basketkii iyo orodadiiba
oo si aad u qurux badan loo soo agaasimay taa lafteeda waanu ka qayb qaadan doonaa aad baan ugu faraxsanay maanta inaanu gobolkii hawd oo caasimadii bilgoboleed joogno oo roobkaas iyo barwaaqada ku raaxaysano ku bishaaraysataa ku abshira ku seexda ku soo toosa wax warwaro ka qabtaan ay jirin biidmillaah kariim hawdkiina hawsheedu way socotaa dadku way iman doonaan waan la diiwaangelin doonaa